السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee channelkayga ku xiran meel walba dunida daafaheeda aad iga daawanaysaan ama aad ka daawanaysaan channelkayga ku soo dhawaada maanta mawduucan kaga hadlayo sanad jirsiga aan sanad jirsaday Austria waxaan imid 2020ka 2020 October haddana waxaa lagu jiraa 2021 October waliba waxay ku dhacaysaa marka ay 20ka October ay gaarto exactly maalinta aan imid mawduuca maanta waxaan ku soo qaadan doonaa saddex arrimood oo muhiim ah farqiga u dhaxeeya shaqaalaha marka loo eego wadankii aan muddada ka soo shaqeynay ee qaliijka marka la eego xuquuq ahaan ee waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin shaqaalaha halkan iyo halkaas sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkayga businesskii ama goobtii ugu horeysay oo aan ka shaqo bilaabo Austria oo aan nasiib u yeesho in shaqadeeda ugu horeysay ay noqoto waxay noqotay meel kamid ah meesh ku taalo moolkan waa dukaan caan ah oo inta badan caalamka intiisa badan ku wada yaalo marka laga reebo Soomaaliya Primark shop oo ah dukaanka ugu horeeyay aan ka hol bilaabo isla markaana aan ka noqdo sales advisor ama verkoper waxa af jarmalka lagu yiraahdo Soomaaligana lagu yiraahdo iibiyaha ama waaninta dhanka iibinta dukaanka marka loo eego iibiye yani waxay kamid tahay shaqooyinka ugu muhiimsan Austria waa marka Austria la joogo laakiin markii la joogo qaliijka ama Soomaaliya marka tiraahdo shaqadeedu waa iibiye they will wonder dabcan laga yaabaa in isweydiiyaan han ninka Indos ahaa oo Qatar Airways muddo ka soo shaqeynaya air farunkiisa ama experience-giisana ahaa airline maxaa maanta kalifay inuu ka bilaabo dukaan haddaba mawduuc kale ay noqon doontaa halkani waa meesha laga ogaado dukaamada ama directionka laga ogaado Blue City ama moolkan lagu magacaabo Blue City waa mool ku yaala gobolka Oberösterreich ee magaalada Linz ee caasimada gobolka Österreich ee magaalada Linz marka aad soo gashid moolka waa inaad raacdaa directionka oo computerkan aad timaada si aadan ugu amban ama aadan ugu dhumin moolka wuu weyn yahay waxaad ku dhufanaysaa homepage-ka sida gabadhanba u isticmaalayso isla markaana waxaad raadinaysaa dukaanka ama meesha tilmaamaha rasmiga aad rabtid inaad u socotid waxa ku yaalo dukaamo fara badan oo kala duwan ayaa ku yaala sida maapka idinkaga muuqataba Blue City meeshan waa newski ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxaad arkaysaa all news homepage ayaad ku dhufanaysaa oo ah page-ka dhan meesha ma taqaanaa macluumaadka dhan oo ku tusinaysa ah isla markaana shopiska ayaa ku dhufanaysaa kadibna dukaanka rabtid ayaad ka dooranaysaa waxaan oo idin muuqda waa dukaamo kala duwan ee ku yaalo isla moolkan waxaana ka shaqeeyaa dukaan kamid ah dukaamada meeshan ku yaalo yani ma oran karno dukaan laakiin waa shopping mall kamid ah shopping mallada Blue City ku yaalo ayaan ka hol bilaabay macnaheedu ma aha in shaqada aan bilaabay ee noqon doonto midaan ku dhameysan doono laakiin markaad magaalada timaadid waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa furaheeda inaad heshid isla markaana wax uun aad bilaawdid mawduuca ayaa ah mawduuc saddex qeybood ka kooban doon labada qeybood oo dambeete waan idin la wadaagi doonaa ku soo dhawaada barnaamijka wata aan ku bilaabay markii qaliijka aan joogay inaad kaamirada la dhex gashid meesha aad ka shaqeysid waxba dhibaato ma lahayn laakiin meeshani waxa la kala xadaa design-ka waa maxay naqshada dukaan walba naqshad u gooni ah oo wax u iibiyo ayuu leeyahay isla markaana wuxuu mamnuucay in la isticmaalo kaamirada lama ogola qof shaqaalaha inuu kaamirada gudaha la galo laakiin kor ayaa idinka tusi doonaa dukaanka aan ka howlgalo ee ah shaqadii iigu horeysay aan ka bilaabay Primark ayaa la yiraahdaa marka waxyaabo badan oo ka sheekeen leh oo ay ka mid yihiin labada qodob hadda aan ka hadlayo ama aan ka dhawaajinayo waxay ku fiicnaan lahaayeen inaan dul tago oo kaamirada aan dul geeyo laakiin maadaama aysan noo suurtagelin Soomaalida waxay tiraahdaa xeero
sidee lagu xagtaa ilkana ayay ku nabadgalaan ayay soomaalida tiraahdaa. Sidee barnaamijka idinkugu sharxaa isla markaana aanu idinkaga dhaadhiciyaa qodobada aan rabo inaan ka hadlo ee ku soo dhawaada. halkan waa meel loogu talagalay nasiinada iyo shiftiga marka qofka shaqaalaha ah waqtigiisu uu ka dhiman yahay daqiiqado. inta badan Yurub ma jirto shaqo daqiiqada ah ka soo hormaraysa ama ma jirto shaqo daqiiqada ah ka dambaysa, waayo waxay ugu talagaleen inay iska ilaaliyaan xuquuq. dadka shaqaalaha waxay leeyihiin xuquuq, xuquuqda ay leeyihiin iyo hay-adaha u shaqada shaqaalaha u dagaalamaya awgeed shirkadaha way iska ilaaliyaan in waqti dheeraadi ah uu shaqeeyo ama uu farta saaro kombiyuutarka qofka shaqaalaha ah. markaad shaqada dhamaysidna laguma ogola sidoo kale inaad daqiiqada badan sii joogto. waa walaalkiin Maria Indos oo maanta raba inaad idila wadaago barnaamijkan. halkan ayaanu ka dhaqaaqeynaa. waxaanu idin geyn doonaa sidoo kaleete xarunta aan ka howlgalo oo ah Primark. waa tahay qodobadii aan idiin sheegay qodob ka mida ayuu weeyey qodobkan. waxaan rabaa inaan dul istaago oo aan idiin sheego farqiga u dhexeeyo khaliijka iyo wadamadan Yurub. tusaale ahaan markaad khaliijka joogtid qofka hadduu 5 daqiiqo soo hormaro ama 10 daqiiqo waxyaabo la mid ah yacni waxba dhiba ma lahan. shirkadana ku xisaabimayso oo oramayso ninkaas 10 daqiiqa u aruurtay ilaa maalin walba 10 daqiiqa haddii la isku daro way aruurtaay lacag buu leeyahay. bilcagsi wadankan Yurub haddii maalin walba 5 daqiiqa soo hormartid way aruuraysaa. shirkadda xaquuq gooni ah antragaaga ama fatragaaga oo ka baxsan ayaad ku yeelanaysaa. marka way ka cararaan oo mar walba ma ogola inaad timaadid xilli ka duwan xilligii adiga fatragaaga ku qornaa. fatrag waa macnaha contractiga idinka dhexeeya adiga iyo shirkadda. marka farqi weyn ayaa u dhexeeya marka loo eego shaqaalaha Soomaaliya iyo khaliijka. xuquuq aad u fara badan ayay leeyihiin shaqaalaha jooga wadamadan Yurub. tan iyo markaan imid Austria, xaruntan waxay ka mid tahay meeshii ugu horreysay oo aan ka shaqo bilaabo. markaan leeyahay ka shaqo bilaabo wadanku shaqo badan buu leeyahay, laakiin aniga waan ku cusba. ku dhawaad hal sano ayaan joogaa 2020ka 2020 maanta waa 2021 October 20kii wax yar baa iga dhiman. waa sanad jirsaday. barnaamij gooni ah oo hadli doonaa inta wax oo iga qabsamay inta dibdhaca intaba, laakiin muuqaalkan waxaan ugu talagalay inaan la wadaago saaxiibadeedii reer dooxo, saaxiibadeedii in badan mataqaanay ama Soomaaliya ama meel walba ama aan la soo shaqeynaynin, inaan wargeliyo odaga hal sano kadib shaqadiisa ugu horreysa oo bilaabo waxay noqotay inuu ka hor bilaabo dukaankan Primark. dukaankan Primark waa dukaan ah shoppingka lagu gado, isla markaana waxaa ka mid noqonayaa sales advisorska ama nimanka wax iibiya ama dharka ama mataqaanay alaabaha waxyaabahaas oo dhan iibiya yaan ka mid noqdo. waa bilow fiican ayaan oran karaa marka loo eego shaqooyinka inta badan laga shaqeeyo.
barnaamijkayga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa saaxiibayaal sidaa iyo nabaadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.